goorma ayay tahay waqtiga la maalgashado marka cryptocurrency ama goorma ayaan coin cusub iibsanaya ama coin iibsanaya goorma ayaan suuqa gelaya oo aan suuqan cryptocurrency ka adeeganaya coins cusub goormaan iibsanaya goormaan iska iibinaya waa maxay xilliga la iibsado coinska iyo xilliga la iska iibiyo dabcan ayaan ku qaadan doonaa casharkan waana muhiim qofku inuu fahmo goormay tahay suuqa in la maalgashado goormaysa tahay in coinska la iska iibiyo suuqa laga baxo waxaan ku hormaraynaa goorta la maalgashado ama la iibsado coinska horta ma jiro waqti gooniya oo coinska la iibsado ama la iska iibiyo oo la oranayo ama qof khibrad leh ama waaya araga ama expertiga cryptocurrency ma jiro waqti cayiman oo lagu sheegi karo la oranayo waqtiga coinka iibso waqtigaana iska iibi waxa jira wax la yiraahdo smart time ama waqti marka aqoon iyo khibrad lagu saleynayo oo ay tahay qofku inuu raaco si coinka marka uu iibsado marka ma jiro xilli cayiman laakiin waxa jira talaabooyin iyo habab la raaco si marka coinku xilligaasna loo iibsado xilligaana la iskaga iibiyo dabcan waxaan ku hormaraynaa goorma la maalgashada coinka marka suuqu hoos u dhaco marka qodobka koowaad goorta aad suuqa iibsanaysaa waxa weeye marka uu suuqu hoos u dhaco oo uu sameynayo correction ama waxa la yiraahdo bear market xilliga uu jiro bear market ama correction waxa weeye markuu suuqu hoos u soo daato oo 20% ilaa 70% coinsku ay soo daataan oo suuqu uu noqdo guduud ama uu casaan noqdo oo coinsku oo dhan suuqa ay soo daataan marka weeye horta marka suuqa la galo sababtoo adigu waxaad doonaysaa waxa weeye coinka meel hoose inaad ka soo raacdo meel sare markuu gaarana inaad ka degto haddii coinkii oo meel sare jooga aad gasho dabcan dee faa'iido karo uu sii sameynaya ma jiro waxa dhici karta inuu dib ugu soo noqdo hadhow adigu ku khasaarto marka waxa qofku inuu eego horta ma lagu jiraa bear market ma lagu jiraa bear market waxa weeye ma jira suuq hoos u dhac ma jira bear market waxyaabaha lagu gartay waxa weeye suuq hoos u soo daadanaya tusaale coinka 50% 60% 70% ayaa coinku hoos soo dhacaya tusaale coin aad ku ogeed $100 baa wuxuu imanayaa $40 markaas oo kale waxa la oranayaa bear market baa lagu jiraa waa marka suuqa laga faa'iideysto coin aad ku ogeed $2 baa wuxuu imanayaa 0.3 ama 0.4 waa marka suuqa la soo galo sababta coinka meel hoose inaad ka soo raacdaa mar walba muhiim ah marka waxa weeye marka suuqu hoos soo dhaco oo correction ku jiro oo bear market lagu jiro marka weeye marka dadka smartiga ah ama dadka marka khibradda u leh cryptada ay maal gashadaan xilligaas uu xilliga la maal gashado marka haddii xilligaasi uu ku dhaafo ama bear marketka xilligaa hoos u dhaco uu jiro uu ku dhaafo horta bear marketka waxyaabaha lagu garto waxa ka mid ah negative news suuqa waxa ku jira news xun cryptada waa la soo daadiyay qof kasta wuxuu la waa jaraadiyadii xogtii wararka soo baxaya kullu waxay tilmaamayaan negative marka uu negative ku jiro oo suuqa bad news ku jiro oo suuqu aad u soo daato markaas weeye marka aad ogaanayso inuu lagu jiro bear market waan marka ay tahay coinska marka inaad iibsato lacagtaada marka hore waxa la soo dhigtaa USDT baa laga dhigtaa baakika la soo gashadaa lacagtu waa inay kugu tahay USDT oo ay kugu jirtaa marka coinku bear market lagu jiro hoos soo daatana marka waa inaad hoos ka soo raacdaa laakiin lacagta haddii aysan USDT kugu jirin inta lacagta soo sarifanayso inta lacagta soo shubayso intaasna waa waqti waxa laga yaabaa coinku inuu kor soo kacaba dhici karta marka had iyo goorba coinkaaga meel lacagta markii aad coinka aad hore u haysato iibisana lacagta qayb kamid ah hadaad la baxayn qayb kamid waxa laga dhigtaa USDT oo waxa lagu sugaa coinsku inta bear market ay imanayaan ama bear market inta la soo gaarayo marka labaad suuqa la maalgashada waxa weeye markuu suuqu xasiloon yahay uu soo korkacna uu soo jirin hoos u dhac aad balaana uu soo jirin waa marka labaad fursadda labaad ee suuqa la soo galo markaas oo kale uu suuqu u degan yahay newsku iska caadi yihiin positive news uu jirin laakiin news normal ay yihiin suuqu isku xasiloon yahay qof kasta la kala dhuunto dadkii negative bitcoin cryptada ka hadlayay la wala soo daadiyay ay backing galaan xilligaas weeye xilligaas suuqu xasiloon yahayna coinku waa la maal gashadaa dabcan ukuntaada meel ma wada geliyo hal mar ma wada gelinaysa laakiin qayb kamid ah marba strategy baa la isticmaalaa marba xaalad lagu jirba in baa la maal gashadaa marka haddii bear market ku dhaafo xaalad labaad waxa weeye markuu suuqu xasiloon yahay bear market kana laga soo baxay bull market kana aan la gaarin oo suuqu uusan kor aadin xaaladaasna suuqa waa la galaa marka saddexaad waxa weeye markuu coinku leeyahay news fiican tusaale
coin baa news fiican ama wuxuu sameeyay update ama partnership tusaale coin aad ku ogeyd central exchange waxa la soo galiyay central exchange baa la soo galiyay qasab waxa ah coinkaas inuu kor kac sameeyo maadaama exchange weyn laga soo diiwaan galiyay coinka dad ku ogeyd contest waxa laga yaabaa coinka inuu kor xoog la uu sameeyo markaas oo kale oo coinku uu update cusub sameeyo ama partnership cid la sameeyo shirkado ama exchange cusub lagu soo diiwaan galiyana markaasna coinka waa la maalgashadaa markaana waa la maalgashadaa marka afraad oo aad maal gashanayso coinku waxa weeye marka trendku uu bilow yahay suuqu markuu coinku uu dhaqaaq sameeynayo ama suuqu marka uu dhaqaaqaya laakiin wali uusan dhaqaaqin ee dhaqaaqa cagaarka uu suuqu soo fulano markaasna waa la soo galaa oo hadii suuqu markuu xasiloon yahay ay ku dhaaftay coinku hadii suuqu markuu xasiloon yahay ay ku dhaaftay fursadda saddexaad ee heli karta waxa weeye coinsku marka ay dhaqaaqayaan tusaale bitcoin baa dhaqaaqday bitcoin waxay go'aamisaa coinska kale la yiraahdo altcoin wixii bitcoin ka soo haray altcoin baa la yiraahdaa marka altcoinski bitcoin way dhaqaaqday altcoinskana wali ma dhaqaaqin marka soo kale chance ka laga faa'iideystaa altcoinska la maal gashada coinska kale aan bitcoin ahayn maadaama bitcoin ay dhaqaaqday iyaguna waa ka daba dhaqaaqayeen si dhaqaaqa aadna aad faa'iido uga samayso markaasna waa chance suuqa uu bixinayo waxa kale oo suuqa la maal gashada marka aad leedahay qorshe ama aqoon kugu filan oo aad coinska ku taxliilin karto marka aad leedahay qorshe waxa weeye DCA waxa la yiraahdaa jira oo ah average waxa la yiraahdo dollar oo tusaale in aad samayso waxa weeye adigu suuqa ama kor haado ama hoos aado inaad waxa weeye no worry aad shidato oo ah inaad waxba warwara iyo formiya macnaha ay cabsi oo dhan aad meel iska dhigto suuqa coinska ma soo daadanaya in meeyo kor u kacaya waxa soo dhan ay shaqadaada aad ka dhigin oo kaliya aad tiraahdo bil kasta shanteeda coinka waa maal gashanaya marka bil walba shanteeda aad maal gashato marka adiga coinsku inuu soo daato inuu kor aado no matter waxba dhib adiga kugu ma hayso kaliya waqti cayiman baa samaysatay waxa tir waqtigaas aan coinka maal gashanaya marka dollar averaging cost baa la yiraahdaa dollar averaging cost oo ah marka waxa weeye coin maadaama aad ku iibsanayso ama coinska aad ku iibsanayso qiimaha kala duwan waxa laga yaabaa mar isagoo bull market ku jira inaad iibsato mar inaad iibsato isagoo bear market ku jira mar isagoo ku jira waxa weeye suuqa waxa xasiloon inaad iibsato marka qiimaha kala duwan average marka la isku celceliyo meel dhuxul iskugu imanaya faa'iido fiican oo wax ka sameyn kartaa cabsidii iyo warwarkii coinka ama la soo daadiyaa ama waxa way meel cabsidaas oo dhan waa ka baxaysaa sababta adigu waxa soo dhan wax adiga khusayay ma aha adigu waqti gooniga ayaad coinka maal gashataa istiraatiijiyad dad badan isticmaalaan ama dad badan khubaro ay isticmaalaan aad ay ugu liibaaneen way runtii qofku inuu danihiisa shaqadiisa iska qabsado coinka uu xilli gooniga uu maal gashado xilliga wixiisa uu gashado maal gashi uu sidaa uu ku sameeyo oo uusan eegin coinku bull market baa lagu jiraa suuqu cagaar ba ma casaan ba ma normal ba isagu inuu safiirin ba sababta average waxa la isku celcelinaya waxa laga yaabaa coin ba waxaad ku iibsatay isagoo $8 maraya isagoo $3 marayana waxaad ka iibsatay isagoo 12 marayana waxaad ka iibsatay isagoo 4 marayana waxaad ka iibsatay celcelis bay isku tagaysay hadda wixii faa'iido ku sameynaya meeshaad oran lahayd bull market ka isugu lahayd ama isugu lahayd suuqu intuu noqonayo normal uu noqonayo ama suuqu intuu bull hash noqonay inta isugu lahaydba inaad waxa weeye adigu aad dhagaxa xirato indhaha laabato xilliga aad maal gashatana istiraatiijiyada dad baa isticmaala marka istiraatiijooyinkaasi waa xilliyada ugu habboon ee suuqa la maal gashado aan kugu soo celiyo suuqa waxa la maal gashada marka bear market lagu jiro suuqu waa aad u soo daato aad boqolkiiba 60 wararka iyo newsyadu ay waxa weeye negative yihiin waa la maal gashada suuqu markuu xasiloon yahay coinsku aysan wali ay degan yihiin waa la maal gashada marka coinku leeyahay news fiican iyo partnership iyo waxa weeye coin cusub ama coinka uu cid horumar uu sameeyay oo dabcan dhaqaaq laga filayana waa la maal gashada marka suuqu dhaqaaq bilaabi rabo oo dhaqaaqi rabana intuu soo dhaqaaqin oo dhaqaaqu bilowga yahana waa la maal gashada marka aad leedahay qorshe iyo waqti ku degana dabcan waqtigaana waa la maal